xulka difaacanaya koobka qaramada qaaradda Yurub ee Itaaliya ayaa gebi ahaanba isaga haray u soo bixitaanka koobka adduunka oo dhamaadka sanadkan lagu qaban doono wadanka Qatar. Xulka qaranka Talyaaniga ayaa markii labaad oo xiriir ah taariikhda markii ugu horeysay aan ka soo muuqan doonin koobka adduunka ee 2022 kadib markii ay guuldaro xanuun badan oo ay kala kulmeen xulka waqooyiga Macedonia ciyaar play-off-ka ee ka dhacday magaalada Palermo. inkastoo ciyaartoyda xulka qaranka Talyaaniga ay soo bandhigeen awood waliba ay ku gaari kar lahaayeen goolka xulka martidii ku ahaa magaalada Palermo ee waqooyiga Macedonia ayaa haddana nasiib xumo 90 daqiiqo ee loogu talagalay ciyaarta ku soo dhamaatay gool ay waxba oo sidaas Talyaaniga ugu haray rajadii ay ka lahaayeen ka qaybgalka koobka adduunka. dhanka kale xulka wadanka qaranka Portugal ayaa soo nooleeyay rajadooda ka qaybgalka koobka adduunka ayagoo ka reebay u soo bixitaanka koobkan adduunka wadanka Turkiga kadib ciyaar ka dhacday magaalada garoonka kooxda FC Porto halkaas oo Portugal 3 gool iyo gool ay kaga gudbeen xulka wadanka qaranka Turkiga. Portugal ayaa ku dhacday xulka qaranka waqooyiga Macedonia kuwaas oo ka soo reebay Talyaaniga. labadan xul kii soo baxay u gudbaya ka qaybgalka koobka adduunka ee lagu qaban doono wadanka Qatar. kulamada ugu dambeeyay ee kala baxa koobka adduunka ee 2022 ayaa la ciyaari doonaa insha Allah maalinta Talaadada ee foodan ugu soo hayso.